If you're involved, you must tell us the truth. I'm not involved. I'm telling you that. I'm not involved. Well, why should somebody put you there? I don't know. I've been telling you over and over. I don't know. That's what I'm saying. I don't know. I don't know what they put me in it for. booliisku waxay baadigoobayeen Lynette White oo ahayd gabar jirkeeda ka ganacsata taasoo markhaati u ahayd 2 dacwadood oo ka socotay maxkamadda. booliiska ayaa u qaatay inay wax uun ku dhaceen markii ay soo xaadiri weysay ugu dambeynna gurigeeda ayay xoog ku galeen balse iyadoo meeda ay u tageen. yaa dilay Lynette White? maanta waxaan eegaynaa kiiska argagaxa leh 15 jir kufsi iyo dil u geystay Lynette White kaasoo aan horay u dhicin. laakiin intaan bilaabin muuqaalkeena maanta hadday tahay markii kuugu horreysay aad soo booqato channelka fadlan ku soo biiray oo saaraya subscribe si muuqaalku aan soo gelina uusan kuu dhaafin. like iyo share-tana nagu caawi mahadsanid. Lynette White waxay ahayd gabar 16 jir oo ku nooleed magaalada Cardiff ee Wales taasoo samaysay wixii ay rabtay. waxay ka tagtay iskuulkeeda dugsiga sare iyadoo ka shaqo bilowday xarumaha dhileysiga ilaa iyo 14 jirkeedii. inay noqoto qof dumar ah oo jirkeeda ka ganacsata ma ahayn qayb ka mid ah riyadeedii carruurnimada. laakiin Lynette White ka hor intaan la dilin wariyaha sare BBC-da Tim Rogers ayaa wareysi la yeeshay kaasoo baarayay gabdhaha da'da yar ee jirkeeda ka ganacsada. intii lagu guda jiray wareysiga Tim waxay u sheegtay in ugu horreyntii koox rag ah ay ii geeyeen Bristol kuwaasoo si qasab ah darooga igu siiyey. sidoo kale waxay tiri xitaa markii aan dib ugu soo laabtay magaalada Cardiff ma aanan helin waddo aan uga baxo dhileysiga. 1988 Lynette maalin kasta waxay ka shaqaynaysay wadooyinka. sidoo kale saaxiibadeeda ayaa sheegay inay noqotay mid ka mid ah gabdhihii ugu caansanaa ee jirkooda ka ganacsada guud ahaan Cardiff waqtigaas. sida ku qoran taariikhdeeda Lynette waxay ahayd gabadha kaliya ee shaqaysa waqti kasta maalin iyo habeen. dhanka kale waxay lahayd nin ay saaxiib lahayd kaasoo lagu magacaabayay Stephen Miller kaasoo ahaa nin aad u isticmaali jiray maandooriyaha loo yaqaano kokaayinta balse habeen walba Miller waxay ka qaadan jirtay 60 ilaa 90 pound oo ahayd isha kaliya ee sida joogtada dhaqaalaha uga soo gala. dhanka kale Lynette Miller waxay kula nooleed guri dabaqa oo ku yaalay wadada St James Street ee Cardiff. sidoo kale maalin kasta Miller ayaa u kaxayn jiray Riverside halkaasoo ay ka shaqaynaysay si ay uga urursato dakhligeeda dhileysiga. maalin kastana sidaas ayuu u socday jadwalkeeda shaqada ee fuxuushnimada leh ilaa laga gaaro February 9keedii 1988. waxay ahayd maalinkii ugu dambeysay ee Miller uu arka Lynette balse Miller iyo asxaabta wax xiriira lamaysan samayn maalmihii u dambeysay ka hor dilkeeda taasoo ahayd wax aad u xun. sidoo kale waxaa la sheegay waqtigaas inay markhaati ka ahayd 2 kiis dacwadood oo maxkamadda laga sugayay balse cidna ma garanayn sababta uu xiriirka asxaabteeda u joogsaday 5 maalmood ka hor dilkeeda. booliiska waxay u malaynayeen in ay si ula kaca isu qarinayso si ay uga fogaato inay caddayn bixiso waxayna bilaabeen inay raadiyaan. horaantii bishaas Lynette White ayaa weydiisatay gabadha saaxiibadeed ee Liam Villaley furaha gurigeeda ujeedaduna ay tahay in macaamiisheeda u galmoonayo ay waqti kula qaadato. laakiin February 14keedii 1988 fiidkii Liam oo ay u badan tahay inay rabtay inay gurigeeda isticmaasho ayaa tagtay halkaas laakiin waxay aragtay inuu xiran yahay guriga. aad ayay uga walwashay saaxiibadeed Lynette. saldhigga booliiska ayay tagtay si ay uga warbixiso maqnaanshaha Lynette White taasoo furaha gurigeeda ka haysato. waxay soo raacday askartii booliiska iyagoo aaday guriga Lynette White kuwaasoo doonayay inay xiraan waayo markii horeba booliiska ayaa raadinayay si ay maxkamadda markhaati ugu noqoto 2 kiis. booliiska ayaana si xooga u soo galay guriga iyagoo kor tagay meydka Lynette White oo dhex jiifta qolka balse booliiska ayaa ku qeexay markhaati maqnaa oo la helay isagoo meyd ah dhaawacyo waaweynna qaba. baarayaasha ayaana xaqiijiyey in ka badan 50 jeer toorey looga dhuftay xabadka, wejiga, caloosha, gacmaha iyo boodada. sidoo kale cunaha ayaa si xun looga jaray ilaa iyo dhegta. sidoo kale baaritaanka autopsiga ayaa caddeeyay inay u dhimatay dhaawac ka soo gaaray cunaha. cilmi baarayaasha ayaa sidoo kale go'aamiyey in Lynette White la dilay February 14keedii intii u dhaxaysay 1:45 daqiiqo oo subaxnimo ilaa 4. sidoo kale jirkeeda ayaa laga helay dhiig iyo shahwo taasoo booliiska u noqotay caddayn ay ku howlgali karaan. isla markiiba warka ku saabsan dhimashada Lynette White ayaa faafay. booliiska ayaana bilaabay inay wareystaan dadkii ka agdhawaa aagga. dadkii ka agdhawaa goobta ayaa u sheegay booliiska inay arkeen nin u muuqday mid murugaysan una muuqday nin gacmaha dhiig ku lahaa kaasoo ku sugnaa aagga meydka laga helay. ninkan ayaana noqday bartilmaameedka koowaad balse dadaalkii lagu raadinayay ayaa la soo afjaray. isla markiiba booliiska waxay xireen nin u dhigma sharaxaada tuhmanaha laakiin wax yar kadib waa la sii daayay kadib markii uu soo bandhigay inuusan shaqo ku lahayn. laakiin booliiska ayaa u wacday Lynette White saaxiibkeed Miller
su'aalo badan ayaana la weydiiyey ugu dambeynna waa la sii daayay markii ay isku mid noqon waayeen dhiigga laga helay jirka Lynette White iyo kiisa. sidoo kale waxaa looga shakiyey dilkan nin lagu magacaabo Francine Cordell kaasoo maxkamadda la horgeyn rabay dambi loo haysta awgeed oo ay markhaati ka ahayd Lynette White. Francine iyo hooyadiis ayaa la baaray balse labaduba waa laga saaray tuhunka sababtoo ah dhiiggooda uma dhigmin nooca dhiigga laga helay Lynette White. tuhmana kale ayaa jiray kaasoo booliiska ay ka shakiyeen. ninkan ayaa ku jiray liiska 12 qof oo booliiska ay ka shakiyeen sababtoo ah ninkan ayaa horay u galay fal dambiyeedyo kuwaasoo ahaa dambiyo kufsi iyo tuuganimo ah kaasoo ku noolaa meel u dhow St James Street. aqoonsigiisa ayaa la qariyay waana loo yeeray. booliiska ayaana ula baxay magaca Mr. X. Mr. X ayaana qirtay in Lynette White uu ahaa macaamilkeeda laakiin waqti hore ay ugu dambeysay. Mr. X noociisa dhiigga ayaa ahaa AB kaasoo keentay in booliiska ay u baahdaan in DNA-diisa ay baaraan. ugu dambeynna natiijadii baaritaanka ayaa soo baxday taasoo Mr. X baaritaanka ka saartay. sidoo kale nin lagu magacaabay Gromick oo ku noolaa dabaqa sare weliba qaybta midig taasoo ay deganeed Lynette White ayaa booliiska waraysi la yeesheen. wuxuuna sheegay inuu jiro nin saydigiisa oo lagu magacaabo Yusuf Cabdullaahi kaasoo garanaya gacan ku dhiiglaha. markii dambena uu sheegay in gacan ku dhiiglaha uu yahay Yusuf Cabdullaahi. Violet Beriam oo ahayd xoghaynta magaalada Cardiff ayaa soo saartay bayaan ku saabsan dhacdadan. waxay sheegtay in 14 February iyadoo wadada maraysa ay aragtay 4 nin oo madow ah kuwaasoo taagnaa banaanka dhismaha guriga lagu dilay Lynette White. laba ka mid ah waxay ahaayeen John Acti iyo Rashid Umar. sidoo kale Angela Sile oo iyana diriska ka mid ahayd ayaa sheegtay inay aragtay Stephen Miller, John Acti, Rashid Umar iyo Ronnie Acton iyo sidoo kale adeerkiis Tony Barris kuwaasoo dhammaantood wada joogay banaanka guriga lagu dilay Lynette White. tani ayaana ahayd waxa kaliya booliiska ay rajaynayeen. booliiska ayaana warqadii xiritaanka u jaray Yusuf Cabdullaahi, Stephen Miller, John iyo Ronnie Acton. sidoo kale saaxiibadii Lynette White ayaa booliiska u sheegtay in Yusuf Cabdullaahi, John iyo Stephen Miller iyo Ronnie iyagoo wada khaylinaya maalin ay ugu tagtay guriga. December 9, 1988 Stephen Miller, Tony Barris, John, Yusuf Cabdullaahi, Ronnie Acton, Rashid Umar iyo Martin Tucker dhammaantood booliiska ayaa xiray. hal sano oo ay xirnaayeen maxkamadeyntooda ayaa bilaabatay Oktoobar 5, 1989 gaar ahaan maxkamadda Swansea Crown. maxkamadeyntooda ayaana noqotay dhageysiga dilka ugu dheer ee socday sharciga taariikhda Ingiriiska 197 maalmood. kadib markii ay 2 sano ku xirnaayeen xabsiga, Ronnie Acton, Rashid Umar, Martin Tucker iyo Tony Adams ayaa la sii daayay. Stephen Miller, John Acti iyo Yusuf Cabdullaahi dambiga ay qirteen darteed mid walba waxaa lagu xukumay xabsi daa'in. dambigaas wixii markaas ka dambeeyay waxaa loo yaqaanay Cardiff 3 ama Cardiff 3 inkastoo aysan jirin wax cadeymo ah oo la xiriira raggan inay ku lug lahaayeen faldambiyeedkan. waxaa jiray shaki iyo su'aalo badan oo ku saabsan xukunkaas. saaxiibada raggan iyo qoyskooda waxay bilaabeen olole ay ku burinayaan xukunkaas. ololaha ayaana helay taageero ballaaran waxaana xigay dukumentari badan ay ka sameynayeen telefishinada dalka oo dhan kuwaasoo ka soo horjeeda xukunka. bishii December 1992 racfaanka Cardiff 3 ayaa la qaaday. in la dhageysto mar kale ayaana loo ballamay. abukaatayaasha ayaa ku dooday in loo cagajugleeyay Stephen Miller, Yusuf Cabdullaahi iyo John Acti. run ahaanshaha qirashadooduna ay tahay in lagu qasbay. ugu dambeynna xor ayaa laga dhigay oo waa la sii daayay markii la dhageystay cagajugleynta booliiska. balse taas waxay ka dhigan tahay in gacan ku dhiiglaha uu weli u nool yahay si xor ah balse yaa dilay Lynette White. 8 sano kadib kiiska ayaa dib loo furay. markana kiiska waxaa loo xilsaaray Professor Dave Barclay iyo madaxa kormeerka Kevin O'Neill. intii ay baaritaanka wadeen Professor Barclay waxay indhihiisu qabteen wax aysan cid kale arkin sanadahan oo dhan. dhiig darbiga ku yaalay kaasoo baaritaankii hore aysan arkin. ugu dambeynna shaybaarka ayaa loo diray. Angela Galab oo ka tirsanayd kooxda shaybaarka DNA-da ayaa heshay DNA cusub kaasoo ciyaarta wax ka bedeli doona. ugu dambeynna waxay sheegtay in wiil 14 jir ah uu yahay kaasoo booliiska ay aadeen gurigiisa. inkastoo ay ka waayeen guriga haddana waxaa loo tilmaamay meel uu ka shaqeeyo waardiyana ka yahay. ugu dambeyn way u tageen kaasoo la marsiiyey baaritaanka DNA-da. inkastoo uu banaanka joogay intii ay socotay baaritaanka DNA-diisa haddana booliiska waxay u diyaariyeen koox kormeer ah oo guriga iyo shaqadaba daba joogta. habeen ayay arkeen isagoo kaniini ka gadanaya farmasi.
balse iibiyaha dawada ayaa sheegay inuu ka iibiyey 64 xabo oo xanuun baabi'i ah, balse xanuun ayaa qabtay taasoo booliiska ay ula carareen cusbitaalka. July 4, 2003 Jeffrey wuxuu qirtay dambiga dilka Lynette White, balse wuxuu sheegay inuu u dilay 30 pound oo ah lacagta Ingiriiska ay weydiisatay si uu u galmoodo. ugu dambeyn Jeffrey ayaa lagu helay dambiga dil darajada koowaad ah iyo kufsi, sidoo kale muddo inuu ka dhuumanayay sharciga, waxaana lagu xukumay xabsi daa'in aan lahayn siideyn sharafeed. daawada adigana sida u aragtaa kiiskan nagula wadaag qaybta hoose. mahadsanid.